gaar ahaan 30 sanadood ee ugu dambeeyay oo tan iyo intii ka dambeysay dagaalkii ugu weynaa oo ka dhacay geeska Afrika oo 77 ama 77 aynu u baxinay iyo waxyaabihii sababay waxa sharaf noo ah in aan studiyaha maanta raad telefishinka caalamiga ah la yiraahdo aan ku soo dhaweeyo Colonel Yusuf Maxamed Cabdi Barre oo Yusuf Dheere ku magac dheer oo isagu kamid ah ragii horseedka ama asaaska u ahaa ciidamada aad baqasheen ee jabhada Soomaali galbeed xoreynteeda iyagu u qoriga qaatay oo hawshaasi uu qayb weyn ka soo qaato oo ka galay Yusuf waxa uu ku dhashay gobolka la yiraahdo Dhanaan Burqayr gaar ahaan degmada la yiraahdo dalka Itoobiya imika lagu sheego ayaa ay ku taalay waxa uu yimi Hargeysa lixdameeyada horaanteedii oo uu ku bartay malcaamadii ilaa iyo dugsiga hoose kadibna waxa uu tagay magaalada Sheekh oo waxbarasho u tagay muddo kadib waxa uu anbabaxay wadanka Suuriya oo halkaasi uu kaga biiray ururo xagga jabhadaha ka soo jeeday markii dambana wuxuu galay kulliyad ciidamadu ay leeyihiin oo ku taala wadanka Suuriya si uu markaa ugu weersamaysto dagaal uu ku ballan qaaday in uu ku xoreeyo dhulka Soomaali galbeed Yusuf marka ugu horeysa ku soo dhawow studiyaha telefishinka su'aashan ku weydiinay waxa weeye maxaa taariikhdaada nolosha hore inta aan sheegay ka sakow ka sheegi kartaa ma aad ku dari kartaa bismillahir rahmanir rahim innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdihi wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa ashhadu an la ilaha illa allah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna muhammadan 'abduhu wa rasuluhu sallallahu alayhi wa sallam wa ba'd رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي waxaan horta mahad celinayaa marka ugu horeysa TV-gan raad iyo bahda barnaamijka hogaaminaysa waxaan aad ugu sii mahadinayaa channelka ay ii siiyeen maanta in aan maaragtay kaga hadlo macluumaadkaas oo aad u waafi ah oo filayo ummad badan oo Soomaaliyeed oo xitaa qaar dagaalkii ku jiray ka maqan qaarkood waayo dagaalku wuxuu ahaa wax sidii doontii kacaanka loo leeyahay kacaanka kolba nima meel kaga dayno u raaca doon socoto waxay nimba meel kaga soo biiray waat sidaad u sheegtay waxa weeye waxaan ku dhashay degmada hadda degmo ma aha waa heer tuule way Burqayr baa la yiraahdaa degmada Dhanaan gobol ma aha gobolka Goday bay ka tirsan tahay inkastoo Goday ka daaweynta Dhanaan anoo yar baan markaa Hargeysa ime madrasadii waxaan ka bilaabay Sheekh Cabdiraxmaan Sheekh Ibrahim Baraawe kadibna military elementary school la yiraahdo qurac dheer ku yaalay ayaad gashay oo ururka Barsiix la oran jiray meeshiisi halkaas interestki ka baxay markii horeysayna Gabiley baan tagay oo intermediate boarding kana waxaan ku soo bedelay Sheekh kadibna iskuulka xabadu keentay la oran jiray secondary ahaa intaan Faarax Umar la dhisay alxamdulillah laga soo dhisay adoo waxbarashadii markaa waqooyi aan dhameystay waati waxaan aaday xagga iyo Suuriya waxa jabhada xafiis ay lahayd oo meesha ku yaalay oo la oran jiray kolka jabhada xafiiska jabhada tahriir Soomaali Gharb al-Muhtal xoreynta Soomaali galbeed xaq xabashida dhulka xabashidu gumaysato jabhada xoreynta dhulka xabashidu gumaysato ee Soomaaliyeed kadib meeshii baan waxbarasho taxdiiri ah oo si loo waafajiyo kulliyadda aan galahayo iyo aqoonta loo baahay manhajkii Suuriya ah iyo meeshaas ilaa iyo 8 bilood ku qaadatay waadu ay u talagalay marka waa ilaa 700 meelaha weeyaan qiyaastii waxay ahayd awaakhirkii 69 baa
marka kadib kulliyadda waxaan galay September marka dee la furo jaamacadaha iyo September baan galay 69 كلية حافظ الأسد بلد أسمها ما كلية سواتي كلا دق وحقوق برنسين ما وميلتري أكاديمية عادي منك سوريا واي كلية حربية ليلة هذا واي كلية دقالك مركا كدب كلية مركا لما يني anaga oo doonayna inaan qolo kolkaas nin la oran jiray Sheekh Xuseen Surra oo reebaali ahaa ayaa jabhadda markaas madax u ahaa jabhadda taxriir Soomaal Qarbi way nintaas ka badan buu hayo doonayay inuu ka soo goosto way halka waxa ciidamo badan oo waxaa jiray xarbi cusaabaadka la baray sida loo dagaalamo oo Suuriya iyo Ciraaq iyo kaga barbaray way marka in ciidanka aan hogaaminay ahayd way meelaha noomaan islaamka ee u dhaxaysa idina xukuminay u dhaxaysa Bulaxaar iyo Saylac inaan ka gallo marka ciidanka horaan dilay ninka imika Sheekh Jaare la yiraahdo oromad islaamiga hogaamiye ayaa madax u noqday oo kaxay ayaa ciidankaas doon buuxday oo hub iyo waxaas ay sii bixiyay intaana kariimada ku jiray rakaas oo markaas waxay dhameysteen tababarka dowladda maqaawir kamaandoosnimada iyo xarbul cusaabaadka oo Suuriya iyo Ciraaq iyo al-Fath ayaa isugu tagay oo ururka Falastiin oo qolada Maxamed Cali ku daray kolka Maxamed Cali oo qolada raacsigo waad Allahu naxariistay way qoladaas inay naga soo warbaxay kolka anagu dhameysano inaan halka ka galahay way qoladii waati marka lagu qabtay doontii waa la qabtay way Soomaaliya qabatay waa kuwii lagu xiray meesha iyagoo cid alle cid yihiin la garan laayahay kadib نوتالك وعدها عمر عرته وزير خارجية يمد أي يديكو يمد سوريا لو يمد واي كدب وحنكو هذا اللي بل إن أنقول كي اللي معنا واي سياسة أنقول كي وصل نقولني وحا قبل حكيمته وهان شفتي محمد سياد قبل هذا مركب محمد سياد يديكو ها واي نفسي وانا عمر عرفت له تاغا marka ugu nimis marka waa adigiyo marka waa keligay way nin hadda dhintay oo la oran jiray Corneel ha oo la oran jiray Umar Abdalla Cigaal ayaa labadiina saamar ka soo wada baxay akademiyada way saddex kale la wehelisay oo qolyihii ba adigu khilaaf ba meeshka yara dhacay way kolkii ka aan ku dhashay ayaa waxay damceen jabhada NFD tii Djibouti tii Soomaali galbeed in inta la baabi'iyo loo bixiyo wax la yiraahdo Jabhal Mutaxida على أي حال محمد هذا كان دميسي ad ma garanaysaa timi xamar Umar Cabdi xagga idin ku yimi dabadna markaad xamar timaadeen militariga aad gasheen Soomaha oo militariga lagu geliyay qofkaan odayga wada hadalay يعني أنا وما وحبان ويديي وسنو سؤالي كدي waxaan doonayaa kolkaan adu qadiyada maxaad ka qabtaayeen marka runtii wuxuu u jawaabay inta gaar ahaan Soomaali galbeed maqan tahay ninka anaga ah soo haysta uu yiri inuu xor yahay lees ma naga mid ma habu way hadii Soomaali galbeed iska badaayay uu jamhuuriyadda aan joogno waxaan anagu wadan walba production-ka oo ku faanaa petrol iyo wax kale industry ma lihin buu wax xoolaha nool ee dadkan jimilada sheeganaya wax xuduud ka sugaya daaqama la buu subag iyo xoolaha dhoofin oo lacag ka yimaado ka karaaba taagnaanin markaas ay hadii runta tahay ana inaan xoolaha ibada maxaa ugu caawin markaas inuu soo jirbaa tahay adigu markaas ninkii ahdi baan dhiganay wuxuu yiri wadanku iga waramay inuu meel cidla wadankani joogay in
soo deyn lagu leeyahay oo meel saf ay ka soo qaadeen in markaa bal horta aan isaga dhisno xagga xoogga iyo waxa kolkaan dhisno kadib aad xarbul cusaabaad aad bilowdaan afrikana aan tol ku yeelano waayo wuxuu yidhi wax macquul aada buu kolkii uu ku hadlay wuu ku qariyay wuxuu yidhi maada qadiyadan afrika tol uguma hayo waxa tol aan carab ahayn uma lihin buu qadiyadan afrika xilli salaasa inaga influence weyn buu yidhi marka horta afrika tol ku yeelana buu yidhi waa kii Umar Carte marka West Africa maalin aad u wareegi jiray in horta bal afrika la dhiciyo in maartay qadiyad iyo dal iyo dad naga maqan yahay inta markaas ururka dhalinyarada oo markii intaan tagin aan aasaasay ururka dhalinyarada Soomaali galbeed oo si fiican wadanka gudihiisa ugu hirgalay iyo wixii lina ururkaan si wata buu yiri صح kana asla dhismo bal horta inta ciidanka inta ila sii xoojino oo nagala sii shaqeeyo muddo qababa in marka 75 buu yiri ilaa 75 ciidamada gal markaa ka bacdi baynu waxa ka wada hadlaynaa markaas 75 ciidankan oo inoo xoogaystay afrika oo tol ku yeelanay kol ilaa maqraatay in dawladda naga maqan yahay marka labaadna aan oo iyada ma ka weydiisano inaynu siiyeen uga haybuud laakiin waxaan helay buu yiri afrika oo maqraatay noo ah haddana maqraatay nooga noqotay in aan nabad ku doonay oo ku weynay kadib United Nationska lagu siin mahayana waan ogahay taana in akhrido kolkaas xarbul cusaabaadkiina bilaaba kolkaas dagaalkaagu saxiix marka boqolkiiba 60 aad maartay naafisaan ciidankana xoog laan ku dharbaaxno marka fartaan taagtay waxaan irjaal madaxweyne horta inta kale oo ku waafaqsanahay laakiin horta anaga waxaan noo fiican maaday qoriga frontka adari lagu la jiro intaan kolba qolo arbeedya yaa la ku dheeray oran lahayn oo rasaasna siiya hada stoorkiina nooga soo dirtaan waa wax anaga noo fiican laakiin bilay sabataaj ku noqotaa qadiyada oo wixii dawladda dagaalama noqotaa oo la yiraahdo dadkii Soomaali galbeed ma dagaalamayaan dawladda dagaalamada oo qadiyada markaas ay qaribataa inay sheekadii fool xumayso markaad wada hadlaysaa 70kii markaa maya waa 72kii Abriil weeye waa 14kii Abriil bay ahayd waa markuu u bixi doono socdaalka Suuriya iyo Kooriya mari doono marka adigu muddadii aan qabsanay 72kii bay noqotay sidii baan horta agreement-kaas aan ku galay dawladda militariga gashay waxa kale oo iga diiday inaan maartay u dirsano rag badan baa naloo ogolaa oo maartay cusaabaadka iyo waxbarasho iyo kulliyada aad ka soo baxday u dirtaan Suuriya Ciraaq aan u dirno uu diiday wuxuu xaggan Kooriya yaan u dirtayna qoliyo markaas ciidamadii 63kii ka sii haray oo Kooriya wax lagu soo baray oo waxana ciidanka ugu heshay waxana maartay meelaha karash baraan gaab jooga kuwii baan isku urursaday kuwii baan influence gareynay si ayna maartay marka muddadii kolkii la gaaray inta muddada la gaarin waxaad ogolaatay marka inaad ciidanka militariga Soomaalida ka mid noqoto inaan ka sii ma noqdo for a time period xidig la lagu qaatay marka xigta waan watay kolka xidig la Suuriya oo 3 bilood mushaarkeeda soo qaatay way doonayeen xidig la Soomaaliya ma doona xidig la Suuriya ahayd marka hore horta agreement-kaas ayaad ku soo gashay ayaan ku soo galay 72kii markay joogto waxaan abuurnay duruuftii khasbi lahayd midaas Ethiopia waxa ka dhacay duruuf kale iyana ka dhacday حيل سلاسة الأفكندي ما هرت لما جاء كلها ما كلها لما ضباط كيوين مركز حيل سلاسة الردي يا سوما ما أفريقيا وشركة أفريقيا كلكم إيمانية كذب وكذب أفريقيا أواخر كيسي وهي مركز مظاهرات كي وحسمين أيام كذب قليه هي أتكسر تاجين باش وحيان وركض اللي يرضوا وسوح وجيستي وكيل حيرنا اللي يردي ظروف وارتها متى وتنبل الله اللي يردي ورك أتري سي وطنا وأكثر والله حري قليه كوريا ودينا شقدي وماشي يشوف له يشتري الموت هاي في بال
وايا حري ورقده markaa soo qoray oo yiri bal horta inta xaree barnaamijkooda markaa wuxuu ahaa inta kuuriya ka soo baxday intaan tababaro yaani qowda maqashay waxaan haw qaban arrin ah in aan gudihii geelno oo gudihi ay wax ku tababartaan oo long term wixii arrimahaas la xiriira waxaad kala xiriiraysaa baa la yiri galaal markaa insha Allah saru aha kolka ma noqon doona oo hogaanka saxanka markaa madaxu ah galaal baa xiriiradii u horeysay ila soo sahmiyay oo meeshan warsheekh ahayd aanu bixiyay qorilow ciidankan dufaan aanu kolkii xaggan koonfurta Ahmed Sheekh kolka dambe maartay aanu codsanay in loo diro markaan ciidankii tabarku u dhameeyay ayaa hadana 75 waa 75 waa kii gabayga igu jirtay taasi maxaad ka xasuutaa ma kolka aan صدقي بشي جون إن صدق يكوي 7 سنة ما شام سايد كاهيده 30 أرارتنا هاي ثاني كان قرنه مثل بيرو وحى إبها ساتركي وضع مركو سورة جل حاجة ويكوس خيران تاي سكار كحق على وجه أنت لواسر على البحر لاقوك على صنعية فرن شقادة سدية الليبانة صوبنا ورسول كي إلمية سيد كعين يال سريرية أيام نقدم كان ثاني أو شيء أساس كهري يورث هذا كان قبل الله. واتكي ورشيخ وات قسم يسعيد كي وقولي كلال بكل حريي وهجان كسان كوقع سنة. مركو لسه سهمية. لسه سهمية. وإلا بذهب وحي عن أقبى هذا عشان دقة. إنه حاجة دوني سوق. أيام بيجي لسه قبلي. واتي. وحكلو قريولي أنكو قرولنا أيضا في باليه وقولي عروسة أمك عليه. وواحد كوري قريولي قولي. إيجاد الجديد مسكون حقلقه وأيوه وحيدوني وحوجا ير قاب ير دفاع الرولة قاب بقول لكم حري إلا إذا كلا غيبيه أنا قلت هوا كهر تجني واي هو أحمد يسمى سماي سنة وات قليه بانو دعوة لي شيخ جار كشري يا محمد علي واجا ريحنا يجانا وحيقول بالله سيد يقول بالله قادر يصير السوداء محمد علي مركا وضيقي way wada xidhnaa waxa soo dhan way wada xidhnaa doonidii baa lagu haystiyo hubkii ma garanaysaa lagu qabtay yaa lagu qabtay lagu soo daayay marka afiskii 15 October yaa lagu soo raaciyay laakiin intoodii badnayd way iska tageen ilaa 5 nin oo maxamed cali ku jira ku soo haray maxamed cali waliba yiri anu meesh yaa qul anu yar baan ma aragtay hada ma ku soo qorayo barkii dabara carab dawladda waxana haysanin ma joogi karo markaas aan mustaqbalka ay u halee wasaasan ku joojiyay way iyo nin maxamed abdi shaali shaayse leeyahado ali waat jartasa kuma yaala jartasa jabad oo jartasa waxa lagu yiri gaalnada saddex weeye oo imika Mareykanka jooga way iyo nin Ahmed Diqal oran jiray iyo Tuuji adigu dhimanka shannin way ninka la yiraahdo Sheekh Jaarana uu sii galay isagu way guduhu sii galay ala kulli xaal kolkan ciidanka tababarkii u dhameeyay oo 3 urur aan u kala dhisnay iyagana aan soo dhisnay ciidankii baalina sidiisa aan organize gareynay wadaadkeed Xuseen la oran jiray oo in dariiqa iyo meesha ku haystayna ciidankii shimbiro loo yaqaanana meeshan bakool ku abaabulay oo wali ay xariisan yihiin oo ama bixinin baan hadana waqooyi aaday ciidankii ugu laxaadka badnaa ee Axmed Guri aan u bixinay iyada abuurta hadana agabar iyada asaastay agabar baad ka samaysay xaradii ugu agabar marka ka sameeyay Jalaal Silxaan baa ii diiday wuxuu yiri baxar janno meeshu shaqmada raagu bixiyay qabri baxarta u bixiyay baxar janno meeshaas aan degnay oo biyaha gool reeji soo dhan ay ku soo daacaan waakii habeenkii u horeysay roobku daay daadku xaradii oo dhan baqaaday halkaana ciidamad ka samaysay bahal abees inuu ku soo baxday dhulkii marka waan soo lugeysay xoog baan hadana aga bartii aan dhistay kolkii weekii ku soo deshiyay ciidankaas oo practically aan hogaamiye gool u ahaa laakiin waxay ahayd marka waxa inta
service for the whole community. Fast, excellent rates, online transfer to anywhere in the world. So, for that fast experience, visit us at www.dahabshield.com or contact us on our free telephone number 0800 6120 337, landline 0207 375 110. Dahab Shield, making money transfer easy. kulanti wanaagsan ku soo dhawaada qaybta labaad ee barnaamijkan raadraaca taariikhda oo aan kaga hadlaynay jabhadda xoreynta Soomaali galbeed WSLF iyo dagaaladii ay bilowday 1976 ilaa iyo intii ka dambeysay. qaybtii koowaad intii daawatay waxa aanu ku wareysanay oo marti noogu ahaa raggii horseedka ka ahaa ama asaaska u lahaa ciidankaasi ay jabhadu lahayd waxa weeyaan Colonel Yusuf Maxamed Cabdi Barre oo Yusuf Dheere ku magac dheer. waxay noo taagnay qaybtaasi hore iyada oo isaga la fahantiisu isagoo markaa kabtan ahaa uu raacay ciidankii Axmed Gurey loo oran jiray oo kamid ahaa ciidamadii ay tababarka siiyeen oo la geeyay aaga oo dagaalkii ugu baanaa uu markiiba ka hor yimi hase yeeshee ay ka guuleysteen guutadii ama ciidankii ugu adkaa ee Ethiopia ay lahayd oo markaa jigjiga ka soo weeraray iyaga la fahantoodana ka sii war helay in halkaasi la dhigayo. qaybta labaad Yusufow iyo hawshii aynu wadnay maxaa markaa haddana dhacay oo idin hor yimi dagaalka waad ku guuleysateen waxaad ka dhigteen qolad ciidankii Ethiopia ay ku faanaysay markaa halka joogay oo la filayay inuu idin qabto markaa sida loogu talagalay loo eego ama loo tababaray in aad ka guuleysateen oo aanay waxba la noqon. waxaad tidhi waxay taasi gelisay in qolada Soomaalidu ay dhiirato tira war haddii nimankiiba laga adkaaday inta booydin hor joogsata ma jirto idinka la fahanteena ay niyad wanaag idin dhaliso oo sidaahan mar dadku taangiga iyo madaafiicda sitay ka adkaateen de kuwa kale loo soo qaban maxaa dhacay markaa ka bacdi seed hawshii u sii wadeen waxa dhacay waxaan isku raadinay horta istaraatiijiyadii militariga adduunka oo dhan waan bedelay qaab tactical jahwareerka aan ku ridnay ilaa maanta socda in ciidanka waxaan ogaanay meesha aad ka bilowdo dagaalku inuu idin taagnaanaya waxa xuduudina meesha dagaal ka dhaco marka waan isku guuray waan sii soconay ilaa hawaas baan sii soconaa anagu aag walba meesha naga aadano maan iska xidhnaa maba sii doonanayno intaas miiraad ku xidhaan dhulkaan xidhaan kolkii ay nimanka halkaa ogaadeen yaa waxaa la soo daranay nin la yidhaahdo dagaalka geesigii Ethiopia ahaa la oran jiray Girma Colonel Girma waa ragga kaliya oo saraakiishii sare oo ka soo reebay Mingiste. Colonel Girma wuxuu ahaa ninkii dagaaladii 64 ku magac yeeshay ee geel xareeska intuu balbaleed ka soo bilaabay ilaa yeed ku keenay ee yiri maartay hashiiba qori ku soo furta sida qoriga ku ururiyay meel la yiraahdo college waa college wuxuu raacsanaa Alemania college marka toga daaqato meesha uu ka gooyo wadadan jigjiga iyo har meelkaas uu yaani mashruuc beera abo ahaa oo college kaasi leeyahay beero marka college bay oran jireen meeshaas ciidamo la xaale oo wax alla wixii in dagaalka Eritrea ku socday dhanbu kaga socday wax alla wixii ciidan haye aaga joogay oo ninkaas hogaaminayo ayaa college noo soo galay college-ka meesha mashruuca waxa 4 week buu socday dagaalkaas reerihii meesha deganaa oo dhan baa qaxay waa Girme war Girmahan muxuu ahaa waa show la fiisa looga waa ninkii yiri waxaan ogaaday
ماشي غيره كجيران ماشي هاد كل عيو إنا إخطالو وغير يهي دميرك وحيل وإثيوبيان عيدي سمارتي يوكو غيرها كتلمان صدا واي جيل ساتكيسين وواقو برتماش ويسي تشيدو فيها شيء جيل يعني وات marka ilmihii dhashay waxa la waagay girmihii 8 waa bari ayaan arooro biciidan u rakibay waay waxaan kula istiraatiijiyaan badnaa maalmo ba ciidan ka yar yahay inuu ka effectisan yahay markaan ogaaday waay markii ugu horeysay 150 iyadu dhigteen konton iyadu dhigteen oo sidii L oo kala waay laba sidii L u gaaraysa iyo mid reserve hor dhabar ka soo waxay waay iyo unug kaare diliya waxa wadato taangi wax ku hogaaminayay dhex gasha ninka disha ama soo qabata maalinkii labaad afartan man ka dhigay konton waay markii ugu dambeysay 20 man ka dhigay girme inta gacanta baa laga arkay taangigi baa lagu dhex diray waay وماشي وابعد لها قتشف كي يلفه ويتحنن جوجا سجالاده واي انا لها وتنت هذا ابد كده اشياء ابد حسسناني كده انت اوغل هذه بلده عسكر تيرده 40 كفوق بالدلي اوفيسر كودي وكيل اينا جرمي هو امر ويناي كربيه هو امر وينا دور iyo 40 sarkaal baa ku dhimatay ويقول هنا إن السوداني اللي يدهده وكورنيلا ويلاهن أوريجينال السوداني بوها لكن إسكا حمارة هي جرمي تحسنا وحي كل نقطي كوشي لبعض بيدين نقطي ديك يا نقصدي هو وين يده وإحنا تشوتشيا مركز ولا واي وانسيس عنا كل كده ضمبة داخل مكان توجع إرر لا يلاقي دبني ها وباب الهرب في حبا أن كلا سمناه يا waxa la soo diray 2500 oo nimankii cadwa ka dagaalamay ee Kongo la geeyo howl soo jirkii hore weeyay oo 2500 oo dameer wadata dameer kaliya loo soo raray oo leeyahay balaay la soo gashay yani waa the last waa patient nin 70 jirka yar mara ragaas way inay soo baxeen baa ugu dhameysay ilaa ay hadeer مرل ninkaga noqon kuwana idinka la idin tiriya xitaa waaxid kama noqon arbitragekooda waraaqahooda iyo liiskooda aan wada haynaaba up to now receiving way waxa kolka dambe waxay ahaayeen maxaysato kolka la soo qoray askar jeel bileys waxa la isku dhafay ciidamadii jigjiga waxaan ku leeyahay kolka aan ku leeyahay istiraatiijiyad waan bedelay ciidankii wadaafteen qaar ciidankii kaliya hal commando ay qabeen nabal bal leeyahay urka shanaad baa la oran jiray mustaxiil fadhii jiray fadis baan ku leeyahay ila ninka hadii la yiraahdo jawhar bay si maray cadawgi ninka feerfeer jooga oo moraal ma hayo ma ogta خلاص yani waxa degdeg guushan degdeg ah waxa dhaliyay وقابتها ku dagaalamayay marka kolkan dhuunta u galay ninkii de Franka joogay muxuu ka qaan Franka harba waxa loo socdaa Addis loo daba maray war holaay in balay dib soo noqday ciidamadaas rajana balbalka nabalbal waxa weeye waa commandos way ururka shanaad baa la oran jiray ururka kaliya ee commandoska ilaahayn buu ahaa kaasina oo mustaxiil fadhii jiray fadis baan ku leeyahay ku cunay fadis وده شهر واي markii ilaa iyo galansaas idinka dhamaanoon mararka qaar kood idinka inta saddex dagaal oo adag bad gasheen intaas sabotage ba xagan yahay waay wax taa kula adiga waxaad la haysatay oo amarka ka qaadanaysay oo kula haystay Soomaha ciidanka iyo Jamhuuriyadda oo aad iskaasii wada lahaydeen maya kolka halka marayno oo galaal iyo hubba loo dirdiriyay way waadkan hoos ka tuur lahayn oo jaraal saxan la yiraahdo
yaa oo qaybtii joogaa markaasoo waxaan jiraanaa dee shiifar nin walba sarkaal buu shiifar buu leeyahay shiifarkaan aqaanaa waay marka amaro badan oo ka dhaafa buu siinoo waan iska dhegaysanayay xaaladda markaad dagaalkaas ku jirto adaa xukuma amar uma baahnid because amarku ninka goobta jooga ma amarku siin karaya waay xaaladda ku gaadhay sumaad sheegin inaad gaadhay ma waan tabinaynay ha waan tabinaynay ciidamadii u horeeyay meesha ku soo xareysanay ee 4 kun ahaa waan ilaa 70 nin oo tababaran aan uga nimid waatina laga dhacay cali xiiran laga dhigtay waay tababar waxaan ka furanay meel jabti la yiraahdo marka dadkiiba tababaraysan kale dhulkaad gashay ha ilaa dhowr iyo 10 kun oo kale aan tababaranay waxaan si fiican uga hubaysanay marka 300 kun ee maxaysatada ahaa inta ciidan warkii ma jiro ciidan Soomaaliyeed oo dhulka soo galay marka ma jiraan soo galay iyo waxdooda mid la ma jiro waa kolka aan kuwaas aan jabinay hubkoodii oo dhan qaar baa qoryaha garaasada aan kala wareegaynay markaasaan meesha tababarka u diraynaa marka weli xabad rasaasa gurmadka horeeyna loo soo diray oo kas buu malayka u soo mariyay wadaadkaasi markaasaa la yidhi nin xun baan usii dhiibay meeshaasoo wuxuu ku daawiyey malayka doonta markaasaa cid aad u dirtay ha doonato asla ayaan buu lahaa yani siyaasada kale ula jeeday waay marka waxaan sameynay marka ma waxaad leedahay markii guulihiinii la arkay ee si degdega ay wixii u bilaabmeen ciidankii dhammaan militariga masal adigoo kale iyo ciidan ka soo raaciyay ay ahayd inay taakula iyo taawab idisiiyaan ayaa iyaga la fahaantoodu idinku hinaasay oo sabataaj ama jaxaabin idinku sameeyay aan in yar ajalada dib kugu celiyo soo bixitaankii markii aan ciidanka la soo baxay booliskoodu ma ahayn inay sarkaal raacdo anna si aan dad loo xukumo waxaan u dhisnay iyagaana isu dhisnay inay madax banaanaadaan aniga iyo wixii askar ka soo jeeda waxaan nahay khubaradii ruushka oo kale talis guud oo hogaamadiisii leh guddi odayaala iyagaan isu dhisnay marka waan tagay oo alaalihii anoo gacanta ku wada baan idhi askarinimo haddaan ku raacaynin awal baan jabhadan ku raacay maalinkaasuu maxamed siyaad digreeto gobonnimo doon kow maxaa intaasoo dhan lii bedeli waayo keligay baa digreeto gobonnimo doona ilan kolkii horena aniga askar ma ahayn sidaa ku sheegay waxaana gobonnimo wax soo bartay jabhad baan wax soo bartay yaaka jaamacadii isma jabhad taxriir Soomaali qarbi waa way marka anigu saasaan duruufta khaaska u lahaa jabhadkaasaan ahaa raaqu soo saaray marka uu ku aqbalayo digreetada kaliya ha ku aqoonsanaya inay tahay ha waa jabhada inaan ka tirsan inaan ahay gobonnimo Soomaali galbeed way marka waxaanu ictimaadaynay oo dhan hubkii xabashidan buu ahaa kan qaaxa ka qaadnay baan inta awrtu sidii weeyay aaladii hubka lagu fitay awrtu sidii weeyay wax oo dhan gabaydi baad ka heli haddaad website ka gasho waayo anagu kolkii wax maana qori karin dagaalkeedii in gobay Soomaalidu waa oratore inay maaragtay in gabayga lagu wado gabaygaas ay ku ogaadaan markii ay 300 kun maxaysatada mingista u soo bixay beeraleyda ahaa oo garanoo 11 meelood iyada ka soo galay aag anaga soo weerareen laakiin birtoon baa ku qalwanaysa waa dadkii meesha lahaa nin walba isagoo qoriyo galaasale inaan sidin ogaada buu oran waa kan wixii baa ka ogaasanay marka waxa ugu horeysay waxaan helo qoryo laba dhuumada marna loo keenay laakiin markii dagaalka ay soo gali doonaan bay ahayd kolkaas waxaan u dirsa muuse sheeka xariir oo golihii ka dhexa kamid ahaa doonelo socday oo ciidan badan oo maxaabiis ah iyo soo qaaday
يهب يا شن يلا واتنكم راح بدور رصاصة إذيك يعني موسى كل كوي لبض هو كان شيء بحلو ما درسوا يسوق ملتري بس أنا إذا كشن يلا واتنكم بمركز إذا أنا هو بقول دري مركز أنا مسقنا وهل أمك مال انتقال كده ويا صحناقي هل بطون مال انتقال كده because منك مال انتقال وحلقة ربع صدق بقول يلا واتن ورجع كا إنه هايستوها سيف كمويان marka inta ku dhufo sidaas marka ku gasheen dhulkii baad marka kolkaan halka joogno maxaan sidaa ka shir kolaha isku yeeray maali yiri ma dhawaama orda dalbay naga lahaayeen way inaashaas dagaalkii baaqi u horeeyay uu soo diray markaas galaal oo yiri waa kala guurkii that word ruuxa afgaradka way marka hadal baa aniga kolkaas iga dhacay way siniya waan inta san dagaalkii soo wadnay ma yoolka ugu dambeeyaan taaganahay ma dib uga soo baxa ma mar labaad sii ka soo bilowba because inuu fashil ma gaaray waa maxamed siyaadna erey u horeeyaan ka qabsaday buu ahaa inta kale ku waafaqsanahay ciidanka aan ku dharbaaxayno fillo sabataaj ku noqda qadiyada ani toos waxaad mooday inay aad runtii ay u cadeyd dad badan bay maqlay oo maanta qaarkood la joogaan dhan markaas weerarkii goday iyo kan galaalka laftiisa hogaamin leeyahay aaga dir dhabo ciidankii Soomaalidu markaa socdaa tafiska soo oo kaasi cali xeerataydi aan aga bar ku xareystay oo jeneraal Gelqaad oo hogaamiye ka ahaa taliye guud la maartay oo ka hagalaan marka ciidamadii Soomaalida oo jabhad sheeganaya jabhadeedii ka ahaa eegada marka waxaan malaa beentii ugu horeysay lagu heshiiyay anu marka reedii ugu soo joogaanba beentii ugu horeysay Soomaali ku heshiisay ayna hee la isku wada raacay madaxweynaheeda iyo ka yaree suuqa socda iyo kii wuxuu ahaa Soomaali galbeed baa oo generaaladii iyo korneeladii makarasa magacooda la garanayay adoo dhaadii si dardaarmay waaga ka xasuusan tahay ana warka dibadda aan u filisaan u dirisaan marka waxaan yani ciidanka idii soo galay marka idinku soo biiray muxuu wanaag keenay muxuu dib keenay sidee xaaladdu marka ay noqotay halkee bay ka soo galeen ciidanka dir dhabo sidii loogu tala galay ayuu soo qabtay way laakiin waxa weeye ciidan markuu dagaal galo kolkaas ciidan tahay operation-ka hal maalin dagaal markuu galo waxa weeye ciidanka in ciidan bedelo isaguna dhaawac gurasho iyo dib habeyn u galo oo kasba looga gooyay marka dib habeyntii ya ciidanka bedeli lahaa waliba hadaanan korka ka gooynin anaga hadaanan ciidan jabhada dusha ka dhigin oo jidka dadari xagga aad sabaan ka gooynin wax dusha gooyin mooyaan xagga dhulka ma jirin gamba laga dhigi lahaa waana loogu tala galay sabataashka meesha ka dhacay kaas ahaa marka waa isku mashquulay oo leedahay oo gudaha marka dawladaha ahaayeen dawlad ma ahayn Soomaaliya kolkaas dawlad ka dhaxdaalan ay ahaayeen marka ruushkii waati ruushku ciidamada Soomaaliya isaga dhisay waati halka lagu kala tagay la isku eeday dawladii Soomaalida iyo magaranaysa inkastoo hadhow ka sheekay doono ishagu marka ma hal leedahay kolka ugu horeysay ciidankan Soomaaliya soo galayba ciidankii bedeli lahaa oo kasba looga hakiyay si loo yiraahdo yaani ama loo eedayo galaal baa la jabiyay ama ciidankaas aan soo waxaynin ila taagtiga maxamed yaa u sheegay warkii uu haystay beenta ay la siiyay xitaa Soomaalida ka wada qaday waxa la gaarsiiyay heer la yiraahdo galaal ninkii maqla oo qaaco kale and he was the only Somali dagaal tagay buu ahaa garanayeen waxa uu magaranaysa rag qaarkood meesha ka wareysanayseen iyo ama habelada ma oranayeen iyo qiyaadada meesha kolkii rag sidaas oo kala galaal iyo ka maqanahay ciidanka kale oo dhan Kenya iyo ka kale hal meel amarkooda laga bixinay
was very 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 dangerous situation buu ahaa khatar arrin Soomaalina aftiina waa inay ogeyn wadanka yaa ka mas'uulaha taliskii militariga maxamed siyaad barre fahanti maxamed siyaad ciidan soo diray ma ogeyn maxamed siyaad marka soo gala aniga leeyahay dambe ha gaadho horta halka ha ii gaadho ha inta markaasuu waana markuu soo bixi doono ee ku qalimi jiray cashiyaasiin la socotay teef ku qalimi jiray intuu yidhi markuu gudaha isaga lafahantiisu soo galay markaasaan idhi soo waxay sameynaa idhi warso on keliya aan halkaasaan joogaa aan kugu hunqaaco tis aan bigsada anigu soo qor ma qoriyaan isma dilayaan ku idhi markaasuu yidhi orodoo maaragtay wakti kolka busy baan ahay wakti kale ila eego markaasaan u dhaaqayaan waa ayaan daro dhulkan holaca ku jira esaas wax alla waxaad kala socota been iyo bagaran lagaa koriyo ama aad u gubanaya wiiga si dhaqaaq markaas ubax kacaanka oo allahu naxariis aburaas ubax bonder iyo iyaga dhaqaaqay moogta marka waxaad ogaatay marka dib u soo noqday in sabotage ama maasha waxa weeye heer aanan situationkayga aanan u diri karin sirtayadii xag aan ka ilaalino maaragtay Soomaaliya sida adigu looga faa'iideysan markaan hadalkaa idhi maxamed seen soo noqday oo gacantii soo qabtay meeshii igu soo celiyay oo gartay maartay nin weyn buu ahaa yani adeer laba mid yeel technicada iyo imanka waxaan khasaaray intiisa kala soo baxay meesha dad Soomaali ah oo dalka iyo dadka u naxay oo dameer leh u dirsan meesha habeenkii marka waa kii baxay ee gudaha galay oo ilaa iyo dhagaxbuur iyo jidka maray waa kii dhexda ku qalimi jiray caashe yaasin dhakhtaradii korneelada dhakhtarada ay ku caawin jirtay marka wadankan because dagaal la galay uma uusan khasaarin erga aad weydiinaysay markaan soo noqdo laakiin dad ugu tala galay sabotage cad oo waxaan oo dhan idinkana la idin sabotage gareeyay baad leedahay oo waxaad leedahay ummadda Soomaaliyoodan oo wax aan laga sheekeyn karin aan safilayo in maaragtay qoraalada maaragtay ay ku soo bixi doonaan adiga la fahantaada ka sheekay qayb kamid ah waxaan filayaa dad badani inay imika ku daawanayaan qaar badanna laga yaabo inay sheekooyinka la haysteen qaarna ay ku arki karaanba oo korneelku miyuu cadhooday tolo muxuu waxaanu naga qarinay muu wax ka sheego dabcan adigoo kale siro badan baad ogtahay waxyaalo badan baad ogtahay wax la sheegay waxaan la sheegi karin way jiraan sababaha ma garanaysaa ay waxaasi u dhaceen awgeed qayb saddexaad ayaan filayaa inaynu halkaa ka geli doono oo saddexaana ay noo noqon doonto lagama dhamaysan karo maalin iyo laba iyo barnaamij iyo laba toona marka qaybta labaad waxaan jeclahay Yuusufow inaynu intaa ku joojino oo qaybta saddexaadna aynu ugu diyaar garowno inaad ugu soo tala gasho markaa iyadoo inoo taagan ciidankii Jamhuuriyadda Soomaalidu ay lahayd oo iyaguna bilaabay in ay galaan dhulka Soomaalidu ay degto ee Ethiopia maxaa ka dhacay markaa intii taa ka dambeysay dhibaatooyinku halkay gaadheen jabhaddii iyo ciidankii maxaa kala gaadhay Yuusuf la fahantiisa sidaad ku xasuusto ciidankii waa laga soo kaxeeyay gudaha la keenay waliba waa la xidhay oo waa la xukumay sababaha iyo amuuraha ay tahay qaybta saddexaad ee barnaamijkan ayaynu kaga sheekay doonaa waxaan leeyahay Yuusuf oo intaana waad ku mahadsantahay nabadgelyo Colonel Yuusuf Maxamed Cabdi Barre هذا